waxaan kala yar hadlayay caashoon ka yar cudur daaranaya waxay tiri hadal kooban aad u koobnaan maayo hadalkaygu in yar buu ka badnaanaya kuwii kale sababtuna waxa weeyaan waxa aan idiin sheegi doonaa wixii ka soo baxay shirkii wixii ka soo baxay ayaan idiin akhriyo doonaa dhowr qodob aniga oo ka mid ah guddiga sare ee bulsho ama board of directors ka waxay yiraahdaan magacooda aniga ku hadlaya marka taas horta waa iyadoo waa cudurdaar yar baan laakiin sameeyay lixdan qodob halan ku qoran hadda ayaa laga soo saaray daawaha laga qaaday way cusub yihiin dabka laga soo qaaday ha af ingiriisi bayna ku qoran yihiin af Soomaali baan ku sheegay marka kulay waa higaadin laakiin guud ahaan sidaa waan dhaamaa oo haddii agaaga aniga wala aragto guud ahaan waan dhaamaay waxa weeye bahalka daawo laga soo qaaday laga soo qaaday daawo shirku magaciisa waxa lagu tilmaamay af ingiriisiga wuxuu ku ahaa International Conference on the Situation in Somalia oo ah shir lagaga shirayay shir caalami ah oo lagaga shirayay xaaladda ka taagan Soomaaliya hadda xaaladeeda oo ka dhacay Columbus Ohio bishan 12keedii 13keedii ayuu socday 2023 lix yar oo qodob yar baan ka soo qaadayaa waxba ku dari maayo inaan wax ka dhimaase waa suuragal oo anu accountant kuna hadiya jeer conservative weey waxoogaa qoyar socod marka wax kuma daraan laakiin waxba ka yar jari karaan marka waxba ka maqanahay laakiin waxba ku dari maayo taasa khatarta ay tahay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan shirku wuxuu ku bilaabmay sidiisaba iyadoo oo ma garanaysaa la saaray focus kala saaray ama la saaray leeyahay saaray arrimaha nabadgelyada gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada ayaa xoog la saaray dad badan oo meelo dhinacyo badan ka imanaya wixii afka qalaad lagu leeyahay multidisciplinary ka imanaya ayaa soo jeediyay talooyin fara badan ku sameeyay xilil fara badan ku sameeyay oo ka hadlay waxyaalaha hortaagnaan kara dhibaatooyinka dhici kara ka hadlay dagaalankaas ugu dambeystii waxa aad loo amaanay dawladda Soomaaliyeed ee federaalku hawlaha ay ka qabatay la dagaalanka argagixisada al-shabaab ayaa xoog la saaray oo magarasa la amaanay aad loo amaanay isla markaana lagu taliyay meelaha ay xurgufiyada ka jiraan ee dabcan ka imanaya wixii ka imanaya magarasa caqabadihii in lagu xalilo si nabad ah in lagu xalilo waa qodobka koowaad marka qodobka koowaad wuxuu u badnaanayaa taageerada dawladda lagu taageero arintaas iyo in meelihii wax ka sii jiraan lagu xalilo si nabad ah micnaheedu dadka isira laayay waxna talabaad wuxuu shirku isla garto arkay baahida loo qabo in la dagaalanka argagixisada la dagaalamaya oo noocyo badan yeesho oo aanu ahaan kaliya mid military aanu ahaanin ee noocyo badan uu noqdo in xoog la saaray isla markaana arrimaha dhaqan dhaqaale ee dadkana aad loo eego nabadgelyadoodana isla markaa dadka shacabka nabadgelyadiisana aad iyadana loo eego iyo iyadana la isku raacay oo xoog la saaray waxa uu aad uga hadlay shirku markaa isku sii raacay in si degan oo harmonious wixii afka qalaad lagu yiraahdo ah in ma garanaysaa loo taageero arrimaha nabadgelyada ee dawladdu wado tasaddexaad waxa la isku raacay waxa bixi doona ciidamadii nabadgelyada ee nabad ilaalinta ee ka socda Afrikaanka ahaba baxaya ee ATMIS bixitaankoodaasi waa in si fiican looga fiirsadaa isla markaana la eega ahmiyadda ay leedahay in si degan oo aan turxaan lahayn isla markaana nabadgelyadii ama security-ga aan khalkhal gelinin oo ay u baxaan in xoog la saaro waxay u bixinaa magaranaysa sustainable security measures in la qaato mid la joogtayn karo macnaheedu taafraad waxa la xoog la saaray siyaasadda isku dheelitiran iyo waliba cid walibana ay iska dhaxari karto la iska dhaxari karo ayaa iyadana xoog la saaray oo aad looga hadlay waxa
hadalladu ama doodu ay ku soo ururtay oo ay ugu soo badnayd in la helo tallaabooyin ama strategies waxa afka aynu ku laalo lagu kobcinayo midnimada oo xoog loo saaray isla markaana lagu adkaynayo hay'adaha dimuqraadiga la iyadana lagu adkaynayo isla markaana ay dadku yeelanayaan inay ka wada dhex muuqdaan iska wada dhexarkaan siyaasadda iyo maamulkaba siyaasaddan ay ka qayb galaan oo magaranaysaaba iyadana aad iyo aad xoog loo saaray tashanaad waxa laga hadlay oo maalintii labaad ahayd iyada u badnayd deyn cafiska iyo arrimaha horumarka dhaqaalaha ayaa xoog la saaray gaar ahaan maalintii labaad niman iyo gabdho u badan ma garanaysaa ay dhaqaale yahanin xisaabaadka siyaasadda guud dejinta siyaasadda ayaa fikrado aad ma garanaysaa dadka u kiciyay runtii soo bandhigay waxa xoog la saaray in muhiimada ay leedahay in adduunka lala cooperate gareeyo international cooperation macnaheedu lala sameeyo in lala falgalo adduunka ma garanaysa ayaa xoog la saaray isla markaana maalgelin la helo oo maalgelin la raadiyo la helana dad aan la baaxmshirayno trade partners iyagana in la helo ayaa ma garanaysa aad iyo aad xoog loo saaray waxa kale isku raaceen soo cusboonaysiinta ilaahay dhaqaalaha ama cashuuraadka iyo waxa soo dhan iyagana xoog la saaro waliba waxa aad looga hadlay dhinaca beeraha xoolaha wixii la oran jiray kaabayaasha dhaqaalaha infrastructure aynu niraahno ay ma garanaysaa si loo jeeyo iyo waxa aynu niraahno dhaqaalaha xorta ah private sector-ka halkaas shaqo abuurku uu ku jiraa ayaa la isku raacay waxa markaa ay ka hadleen in stakeholder-ka dadka ma garanaysaa daneynaya siyaasadda iyo dhaqaalahaba in ay cooperation sameeyaan cilmi isweydaarsi ay sameeyaan ugu dambeystii oo tii lixaada waxa lagu soo gabagabeeyay oo shirku ku soo gabagaboobay si togan positive note waxaan si togan oo aan turxaan lahayn ayuu ku soo gabagaboobay oo dadkii ka soo qayb galay oo dhani ay isku raaceen in la taageero nabadaynta iyo la dagaalanka argixisada in aad iyo aad loo taageero marka taas ayaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigoo boorka ka wakiilana si غير caadi ayaan idinku mahadnaqayaa de Columbusna waa dawladdu iyagaba dawladda waan soo noqonaynaa hadii la yiraahdo xaaskuniga masluuxa oo dhan ma yara meesha u joogtaa oo dhanina